السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن dhammaan daawadayaashayada ku xidhan barta YouTube-kan ku leenahay ee Buurdhab Media. Fadlan waxaan kaa codsanaynaa haddii aad nagu cusub tahay channelkayga inaad subscribe saarto, muuqaalkana share garayso, siina like garayso, commentiga aad ka bixiso. sidoo kale haddaad nagala socoto bartaan Facebook ku leenahay fadlan follow soo dheh page-keega. waad mahadsantahay. muuqaalkeenan maanta waxaynu kaga hadlaynaa arrinta 18 May. gabadh ka mid ah gabdhaha u dhashay gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood, deegaan ahaan ka soo jeeda magaceedana la dhaho Hodan Laanta Bari. waa gabadh u dhalatay deegaanka gobolka Sool, magaalada Laascaanood. waa gabadh dhulbahanta ah, waxaanay ka soo horjeedaa madbaca ah khaatumo ama kooxaha SSC la magac baxay nabadiidka. muddooyinkii u dambeysay waxay magaalada Hargeysa ka abaabuleysay u diyaargarowga xafladda 18 May ee xorriyadda Somaliland, iyadoona baraha bulshada ay ku soo bandhigaysay sawirro iyo muuqaallo ay ku muujinayso jiritaanka iyo qarannimada Somaliland. gabadha aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa, guul baan rajaynaynaa. midnimada iyo qarannimadana in la ilaaliyo waa muhiim. sidoo kale gabadhaas Hodan Laanta Bari muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira muuqaallo iyo codad iyo qoraallo uga imanaya kooxaha nabadiidka oo ugu hanjabayaan inay qaarajinayaan. waxaan ugu sheegayaa kooxaha nabadiidka naf kastaaba maalin bay dhimanaysaa. maalinta Ilaahay u qoray Hodan Laanta Bari dhimanaysaa. gacantiina idinku wadka kuma haysaan. insha Allah waana gabadh jecel horumarka Somaliland. dhammaan qof kasta oo bulshada jecel horumarka Somaliland haddaan nahno waan soo dhaweynaynaa, ama bulshada Somaliland haddaan nahno waan soo dhaweynaynaa. sidoo kale halkan waxaan codsi uga dirayaa dhammaan daawadayaasha channelkayagani inaad subscribe saartaan si channelku horumar u sameeyo oo aynu uga qayb qaadano soo tabinta xorriyadda, maalinta xorriyadda Jamhuuriyadda Somaliland 18 May oo dhowaan nagu soo foole. insha Allah waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar dhammaan bulshada Somaliland gudaha iyo dibadda. waxaan ka codsanayaa sidoo kale uu sheegayaa bulshada Somaliland in xafladdan 18 May-ga ay noqoto mid lagu taageero horumarka Somaliland. insha Allah wixii marba ku soo kordha xafladda 18 May iyo warbixinaheeda waxaa kala socon doontaan channelkaygan Cabdiraxmaan Buurdhab Media. waxaana la socodsiinayaa anigoo Cabdiraxmaan Buurdhab. mahadsanid.